ciidanka booliska gaarka ee dowladdeegaanka Soomaalida ayaa isticmaalay gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo isugu jira gaadiidka gurmadka degdega ah kuwa daabula ciidanka iyo gaadiidka raashinka qaade ee ciidanka fadhiyadooda kala duwan ay ku leeyihiin gudaha deegaanka iyo xuduudahan la wadaagnaba gaarsiiya raashimada kala duwan ee isticmaalaan ciidanku gaarsiiya ciidanka ayaa waxa uu leeyahay geerash weyn oo loogu sameeyay gaadiidkaasi dayactir iyo dib u hameyn ku xardhida sumadda ciidanka gaarka ah waxaana ka howlgala farsamo yaqaano iyo makaanigo ku takhasusay cilad bixinta iyo dib u habeynta gaadiidka noocyadiisa kala duwan waana kuwan qaar ka mid ah makaanikada ka howlgala geerashka oo isugu jira qaybta ku xardhidka sumadda ciidanka ee gaadiidka iyo makaanikada guud oo wareys la yeelnay geerashkayga waa arkabanaya bawrta sida loo shaqeeyo halkan waa injiimadii halkan qaybtan waa qaybta garbuuqsida ka shaqeynay qaybta kale qaybta makaanikalka taas waa rinji waa soo darteen qaar waxa degan yihiin makaaniintu qabradaar qaar waxa degan yihiin marsin marka aad waa geershaad balaadhan runtii makaanik baa ku qoran ilaa 8 waa soo arki doontaa sida yihiin marka horiyo iyo ka dawsada ka dhigo kulli waa soo arki doontaa malinga marka aad baa loo shaqeeyaa geersh miin qaybta waxaana waaxdan rinjiga rajarka yaa ka shaqeeya oo xarunta new police gaadiidka new police baan waxa weeyaan nahay qaybta rajarka ka shaqeeya ilaa hadda ilaa gaari ugu horeeyay new police oo yimid ana buufiya isbedel macnaha mar baan hal bar kan hadda mooyay mar hore oo kala bedel rijiga oo nooc kale ka dhignay dreeska aan isbedelkii aan ka qayb qaadanay haddana waa markii labaad bedelo marka hore waxaan marinaa rinji cagaar la barnaya cagaar kadib barbaraha la marinaya gaariguna wuxuu qaadanayaa 2 cisho ama labadii maalmood gaari baan buufinaa labadii maalmood gaarigu naga dhamaadaa markuuna cilad lahayn sidoo kale cusub yahay maalin naga dhamaanaya maalinkii 2 gaari waa dhamaada shaqada waa sida qaybta rinjigan xisaarnaa bilicda shaqadeedu waa taa 12 sano weeraan baa shaqeynayay 12 sano ilaa hadda marka waxay la shaqeeya ninkan inta ciidanka oo dhan baa la shaqeeya shaqaalay waa intaas ciidanka oo dhan baa la shaqeeya marka hadda inta ay hoos baadaa waxaan ka tirsanahay qaybta buufinta dariiska ciidanka gaarka ah macalinkeeduna waa kan Ibrahim Xaashi baa la yiraahdaa isaga 12 sano ayuu mataqaanaa ay hawshan soo waday annagana marka dambe arday baan oo helno dib baan ugu soo beernay dariiska asaga gacantiisa ku sameeyay qaybta rinjida kalarada kala duwan waxa weeyaan waa rinji fara badan uu isugu geeyaa qabrad aad u xeel dheer buu leeyahay waxa weeyaan asaga gacantiisa marka dambe dariiska ku soo saara muddo 12 sanaana uu soo waday gaariga ugu horeeyay ee ligu booliis la buufiyo ee dariiska lagu buufiyo asaga ugu horeeyay waxa weeyaan marka hore marxalad kala duwan oo xagga rinjiga ayaa caqabad ka ay naga haysatay hadda laakiin boqolkiiba 95 qalabkayna uu dhameystiran ka dhigan tahay waxa weeyaan annagoo dhowr ah oo arday ah waan ka aflaxnay hadda hawsha waan la wadnaa inta badan asaga tilmaan buu nasay hadda waxa weeyaan qaybtaas annaga ka adkaan hadda waxa weeyaan 78 gaari oo gaadiidka cusbay aan bilownay qaybta ugu badneed waan buufinay oo way naga baxeen saas hadda warkiisaan qaybtan hadda fiilay ku jiraan oo waan wadnaa hawshooda way socotaa marka sida ugu dhaqsaha badanna toddobaadkan gudihiisana iska wada gabagabayna oo dhameystirno oo hawsha ciidanka oo wada baxaan ayaan mataqaanaa ku tala jirnaa marka hawshayna waa noocaas saan sheegay ardadana intaan hadda daba taagan macalinka marka laga reebo waa ardadii waxa weeyaan aniga xilligeyda iga dambeysay hadda intooda badan waxa weeyaan hawsha ayakana way ka qayb qaataan marka hoos bay saasay hawsha ku dhameystiran tahay dhanka kale waxa isaguna warbixin naga siiyay gaashaan la dhexe Tamaan Cabdidheeg oo ah taliyaha gaadiidka iyo geerashka oo naga warbixiyay warbixinta guud ee geerashkan iyo waxyaabaha ay qabtaan bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeyaan halkani waa xaruntii ciidanka gaarka geerashkiisa guud weeyaan geerashka ciidanka mataqaanaa u shaqeeya geerashada ciidanka ama dhamaanba waxa u shaqeeya waxa weeyaan 112 askari weeyaan ciidanku markii hore wuxuu badnaa shacab u badnaa kadib waan tababaray kada mataqaanaa dhamaan wax shacab kuma jira dhamaan waa ciidanka shaharqayo baa ku jira shaamballa ku jira gaanta mariya ku jira sidoo ciidanku u dhisnaa buu dhisan yahay marka saddex xayl way saddex gaanto kala dhisan yahay ciidanku gaanta waxa weeyaan mataqaanaa waa gaantada fuel mechanic la yiraahdo gaanta uu ka sokooban yahay ciidanka gaanta mataqaanaa fuel mechanic waxa weeyaan ilaa 230 weeyaan
sikin baa jira qaar bartaa jira geerishku maaha halka keliya maaha afar rigood baan leedahay marsin qayb ah ilaa 15 askari qabridaar bay kuma dhaban yihiin kolba qayb waxaa jirta wareegto oo halka gawaaridu ama dhibaato ka dhacda u wareega jira gawaari ay iska fuulaan baa jira qayb wareega ku qoran baa jira marka ciidanku waxa weeyaan ciidan wada nabaara waxa weeyaan andaya suur hibataya suur soostaya suur saddex aam ka koobaya ciidanku ka ugu yar ba mataqaanaa ilaa 12 ka ugu yar ba 7 sano shaqeeyay markaas sida weeyaan ciidanka mataqaanaa gaarka geershkiisu waxa weeyaan baabuurtu waxa weeyaan waagi hore waxa ku jireen xawli bay ku jireen aad bay u burburi jireen laakiin eega way rooyihiin laakiin gaarigu kolka mataqaanaa uu eega 500 oo kilomitir kolku maro saliidan ka bedelaa awoodiisu kolkii hore waa iska yar waxasnayd laakiin imika aad baa looga wada hadlay xukuumadda iyo ciidanku aad bay wada hadleen imika aad buu tayo leeyahay aad buu boqolkiiba boqol ay tayo leeyahay gawaaridii soo gashay hadda noo soo gashay la soo gabagareeyay waa 130 gaari 130 gaari hadda miisaaniyadeedu waa la shubay waan gacan marinaynaa waan adkaynaynaa rinjin cusub baan ku dhufanaynaa kadib waan kala badhabaynaa hadii la yiraahdo buufimadu waxa weeyaan lagama yaqaano magaalada dhexdeeda dadka shacabka ma yaqaano dir dhaba lagama yaqaano waa farsamo ciidanka gaarka ay u keenay weeyaan waxa mataqaanaa ninkaas injineer gaarka injineerka koobaad ee mataqaanaa ciidanka gaarka waa kan 12 sano ciidanka ahaa waa shahalaqa ninkani marka isaga keenay midabadan eega aan ciidanka kuwii hore ku buufinay iyo kuwan eegan ku buufinay kuwaan ahayn buu yaqaanaa oo kale oo hadda noo laaban naqshadeyn badan buu yaqaanaa marka saanu ilaahay ka rajeynayna mataqaanaa in laga dalbado ciidanka gaarka buufintiisa laga dalbado oo hay'adaha kale iyo ciidamada iyo wadannada kale laga dalbadaan ayaanu ku hanweynaa hadii la yiraahdo qorshahaas aan qorshaysan annaga waxaan noo qorshaysan in mataqaanaa qabri dahar dhagax buur fiiq gobolada oo dhan inaan geerish ka sameeyno oo mataqaanaa waan dhaadhicinay geerish waan sii dhaadhicinay madax geerish baan birqod geynay waxaan geynay qabri dahar baan geynay wardheer baan geynay fiiq baan geynay waxaan doonaynaa geerishyo badan oo ilaa 14 geerish inuu dhala ayaanu ku tadal jiray hadii la yiraahdo dadaaranka waxa weeyaan annagu waxaan noo qorshaysan xukuumadda maadaama iska reeb taagtay iska garab taagtay annaguna inaanu ficil muujino farsamadayadii tii hore iyo tu dambaba inaanu eega soo korino ayaa noo qorshaysan hadii la yiraahdo